kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada qodobada wararkeena barnaamijka aragti bulsho inta aanu ku guda jirno aad ku daawanaysaan xaaladdu way adag tahay dalka iyo caalamkuba waxaa loo baahanyahay inay u diyaar garoobaan inay sii adkaato hadalkaasi waxaa yiri wasiirka arrimaha gudaha dalka Sweden mar uu la hadlayay shacbiga reer Sweden dalka Iran oo la tacaalaya dad kor u dhaafaya 3600 oo qof oo cabay alcohol riban ama aan la barxin taa oo ay kaga hortagayeen sida la sheegay cudurka coronavirus iyo waliba maamulka gobolka Banaadir ee dalka Soomaaliya oo soo saaray qodobo culus kuwaasi oo kaga hortagayo baahida cudurka coronavirus qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan inta uu soconayo anigoo ah Xasan Maxamed Axmed Xasan Liisha ayaa idin tabin doona halka aad ka daawanaysaan waa barteena internetka ee aragti bulsho ee aanu ku leenahay YouTube-ka wasiirka arrimaha gudaha dalka Sweden ayaa mahdiyay shacbiga reer Sweden sida wanaagsan ay u qaateen talooyinka dawladda iyo kuwa hay'adaha caafimaadku ay u soo jeediyeen inta lagu guda jiro la dagaalanka cudurka coronavirus wasiirka arrimaha gudaha dalka Sweden Mikael ayaa sidoo kale sheegay in shirkadaha ganacsiga qaarkood aanay talooyinka la soo jeediyay u qaadan sidii loo baahnaa talooyinka ma ahan wargelin ee waa xeer loo baahan yahay in la qaato inta lagu guda jiro xaaladan iyo xilliga ciidda booskiga ayna aad muhiim u tahay xeerkan in la raaco ma doonayo inaan arko dibadaha maqaaxiyaha ku yaala ee la fariisto oo ciriiri loo fadhiyo ayuu ku yiri shir jaraa'id oo markii horeysay uu qabtay Mikael Denberg isaga oo markaasi warbixintan lagu baahiyay raadiyaha dalka Sweden boga internetka ay ku leeyihiin dalka Iran ayaa la tacaalaya dad kor u dhaafaya 3600 oo qof kuwaasi oo cabay alcohol riban ama aan la barxin oo ay kula dagaalamayeen cudurka coronavirus kadib markii qolooyin ay been u sheegeen dadkaasi dalka Iran ayaa la soo sheegaya inay 600 oo qof ku dhinteen halka 3000 oo qofna ay haatan la ildaran yihiin dhibaatadii ka soo gaartay alcoholadii ay cabeen taasi oo ay kula dagaalamayeen sida la sheegay cudurka coronavirus oo dadkaasi mudahayay sida uu sheegay afayeen u hadlay wasaaradda cadaaladda dalkaasi Iran Emily oo la hadlayay wakaalad wareedka Tasniim ayaa intaasi raaciyay in dhowr qof loo hayo dambigaasi kadib markii ay faafiyeen been baahsan taasoo ay ku sheegeen in qofkii cabaa alcohol riban ama markaasi aan la barxin in ay ka raysan doonto cudurka coronavirus maamulka gobolka Banaadir ee dalka Soomaaliya ayaa isna soo saaray qodobo dhowr ah kuwaasi oo la sheegay inuu kula dagaalamayo faafidda cudurka coronavirus maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray amaro kuwaasi oo ku mamnuucayo in bulshadu ay isugu tagto meelaha lagu caweeyo ugu horeen iyadoo aanu ognahay in jaamacadaha iskuulada iyo dugsiyada quraanka la fasaxay isla markaana bulshada ay u fududahay inay helaan waqtiyo ay ku kulmaan ayaa waxa uu maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose Xamar uu bulshada ugu baaqayaa in la hakiyo kulamada bulsho iyo isku imaatinka goobaha la isugu yimaado maadaama caabuqa uu ku faafi karo isku imaatinka bulshada labo gabi ahaan waxaa la mamnuucay goobaha lagu caweeyo sida baararka shiishada lagu cabo saddex xeebta liido oo gabi ahaanba xirnaan doonta 6 subaxnimo ilaa iyo 10 fiidnimo muddo 2 isbuuc ah waxaan ka hadlayno waa xeebta dadka u yimaada inay ku dawaashaan number 4 goobaha ganacsiga ee la isugu yimaado sida hoteelada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaan faraynaa in la hakiyo kulamada waaweyn ee isu imaatinka sida shirarka xafladaha iyo wixii kale soo raaca ee keeni kara isu imaatin bulsho oo sababi kara faafidda caabuqa COVID-19 intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena aragti bulsho oo ka daawanayseen barteena internetka ee aanu ku leenahay YouTube-ka aragti bulsho
barnaamijka waxaa idiin tabinaya anigoo ah xasan maxamed axmed xasan liisho halkaad ka daawanayseena waa barteena internetka intaanu barnaamij kan la mida aanu ku wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh